sono inakuchekaya, and I love you more than my life. And I hit bakiyahu baby, look up in. اوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبنا كحورن channel كنا مو فاهم كسر وهذا مقال كنا مانتا تست ربنا فيدي صباح مو فاهم ويا لسعو waxaynu maanta muuqaalkan gudihiisa ku falanqayn doonaa heesta nimco happy oo caalamka happy ka dhigtay in ka badan 170 wadan ayay dadkiisii heestani kaga siisay and I love you more than my life. dadan xataa weligood Soomaaliya maqal ayay ku kaliftay inay afka Soomaaliga ku heesaan. muuqaalkan gudihiisa heestaasi ayaynu wixii aynu ka oran kareyno kaga oranaynaa nimco happy fankeedu waqti xaadirkan xagga uu socdo iyo arinta shirkadda caalamiga ah ee nimco happy heshiiska la saxiixatay. balantaynu arrimahaasi u gudagalin marka hore bal haynu wada daawano dadyowgani challengeska ku soo sameeyay heesta nimco happy. What the hell? heesta nimco happy halkaasay gaadhay ma waxay maraysaa doob cadday inay sidaasi oo dhan ugu baashaalaan. ma hubo muuqaalkani inuu yahay mid dhab ah oo meeshani inoo muuqata laga daaray heesta iyo in la kor saaray. ay fanaanadii ogsoonow inaan ku jecelahay ana love you more than my life ana xibbak yaa xabiib. gabadhan waxaa lagu magacaabaa Anisa Nikaj iyo wax lamid ah. waa gabadh asal ahaan ka soo jeeda Albania balse ku nool dalka Mareykanka. waa fanaanad ku heesta afka Ingiriiska oo la yaqaan. nakupenda mimi sana waa ujeedada caashaqayga. wow walibana waa ujeedada caashaqaaga si sax ah u heesaysa. ogsoonow inaan ku jecelahay ana love you more than my life ana xibbak yaa xabiibi nakupenda mimi sana waa ujeedada caashaqayga. xariif waxa loo soo qoray isku day inaad ereyada si sax ah ugu heestid oo ugu dhawaaqid kuwa aad garanaysid iyo kuwa aan garanaynba. Soomaaliga, Sawaaxiliga, Ingiriisiga intaba si sax ugu dhawaaq. marka xariifkan si wanaagsan ayuu ugu dhawaaqay hase ahaatee buug soo qortay. ana love you more than my life ana xibbak yaa xabiibi. okay inta carabku soo jeedsanaya maadaama carab yahay. hay lamaana qurux badan. ogsoonow inaan ku jecelahay ana love you more than my life ana xibbak yaa xabiibi nakupenda mimi sana. is that a gang sign? waa ujeedada caashaqayga. isku day kari waay see samaysay. waxay ninkan khayraadda nagu soo garay. ogsoonow inaan ku jecelahay ana love na si sax uguma dhawaaqin. afka Soomaaliga ma sidaas oo dhan buu adag yahay. inaan ku jecelahay ana love you more than my life ana xibbak yaa xabiibi nakupenda mimi sana waa ujeedada caashaqayga. wuu ka aamusay wuu ka dhacay inta dambe. haye ogsoonow inaan ku jecelahay ana love you more than my life ana xibbak yaa xabiibi nakupenda mimi sana waa ujeedada caashaqayga. ujeedada caashaqaaga dib looga laabanaya iyada. okay sidoo kale waxaan arkay shakhsiyaad adduunka caanka ah oo qaarkood heestan soo baahiyay sida Bella Hadid oo Instagram-keeda ku soo baahisay oo la daawaday in ka badan 3 milyan oo jeer. Cardi B baa kamid ah ninkan kale caanka ah ee South Africa-ka ee comedian-ka Noah Ban Malani magaciisa lagu magacaabo. ninkaasina waa iska soo duubay. waar adigu heestan adduunyadii bay ruxday nooc kasto aadanaaba heestan gaadhay. horta meeshan lagu magacaabo TikTok waxay ku caan tahay inay dib u soo noolayso heeso beriyo la qaaday umaad arkaysaa ayadoo hal mar dhug ay ku yiraahdeen oo kala kaceen. heestan nimco happy de 4 sano ka hor bayba heesto farahay ka qaado iska ilowdayba oo mid kamid ah heesaheedii ay hore u qaatay ayuu kamid ahaayo de inagu Soomaali hadeenu nahay waanu heesnaa. balse gabadhani ku dhawaad 2 isbuuc ka hor bay ku baraarugtay oo loo soo sheegay balse gabadhani warbu umaanay hayn inay heesteedii qabsatay TikTok. ku dhawaad 2 isbuuc ka hor baa la gaarsiiyay la yiri de TikTok iyo adduunkiiba adiga haysta gabadhay. sidoo kale arinta heestan waxa ka hadlay warbaahimo waaweyn oo caalami ah sida wargeyska caalamiga ah ee The Guardian, Al Arabiya iyo warbaahimo kale oo waaweyn oo caalami ah ayagoo si weyn uga faalooday qisada heestani iyo waliba fanaanada qaaday. Guardian hadeenu soo qaadano markii uu ka soo waramay qisada heesta iyo fanaanada wuxuu soo qaatay ereyada heesta ogsoonow inaan ku jecelahay oo ku noqonaysa afka Ingiriisiga know that I love you and I love you more than my life ana xibbak ya habibi nakupenda mimi sana Swahili oo micnaheedu tahay I love you waa ujeedada caashaqayga. afka Ingiriisiga ku noqonaysa you can see my love
no waa qalataas waa ujeedada caashaqayga you can see my love maaha waa ujeedada caashaqayga afka ingiriisiga miyaanan u noqonaynin it is the meaning of my love ayagu waxay fasirteen ereyga waa ujeeda caashaqayga waa ujeeda waa ujeedada maaha turjumaan google la dhibtaasi ayuu leeyahay markaas tiraad wax ka turjumo macnihii aad ka rabtay micnaan ahayn buu kuu saarayaa tiktok heesuhu markay ku kala kacaan inta badan fanaaniintu waa ay ka faa'iidaan ayagoo ku faa'iida magac ahaan iyo dhaqaale ahaanba balse nimca habi heesteeda waxay qaatay 4 sano ka hor waxaana isaga jirtay youtube-ka RTN TV oo dee ayagoonba iska qaadanaya dhaqaalaha yar ee kasoo xarooda oo iyadu shaqaba kumaanay lahayn heesteedii waa iska ilowday waana dayaca haystaa muusiga soomaalida oo qofku waa iska heesaya heestaasi xuquuqdiisu uma ilaashana cidii doonta iska isticmaalaysa yacni fanaanka soomaaliga heestiisu waa hees la wada leh dhibta jiray ayaa waxay ahayd gabadhani meel lagu hagaago ma jirin meel lagala xidhiidho ma jirin social media gabadhani kumaanay jirinba Instagram kumaanay jirin TikTok warkiisa da YouTube iskaba dhaaf haddaba ugu dambeyn gabadhii social media soo gashay Facebook iyo YouTube iyo meel kasta soo fadhiisatay ilaa TikTok markiibana TikTok iyo Instagram calaamadii saxda ahayd ee TikTok ay u saareen si looga dhex sooco dadka kale magaceeda isticmaalaya waxaana ugu dambeyn heshiis la saxiixatay shirkadda caalamiga ah ee Universal Music Group taasi oo macnaheedu tahay haddeed heesteeda iyo heesaheeduba waxay noqonayaan kuwo ay xuquuqdoodu ilaashan yihiin dhaqaalaha heesaheeda uga soo xaroodayna bilaash kuma khasaari doonaan oo shirkaddan UMG waxay u fududeynaysaa haddeed heesaha nimca habi dhinaca suuqeynta dhinaca distributionka ilaalinta xuquuqda heesta oo heesteedii xataa YouTube baa looga daba yimid oo heesteedii YouTube ku jirtay waa la kala imgareeyay taasi micnaheedu tahay heesaheeda ku jira dhammaanba platformska dhaqaalaha ka soo gala inay wax ku yeelan doonto haddaba shirkadani UMG maxay tahay shirkadani waa shirkad caalami ah waxay ka mid tahay shirkadaha dhinaca muusikada kuwooda ugu waaweyn fanaaniinta shirkadani hesiisa kula jira waxaa ka mid ah Justin Bieber Billie Eilish kooxda Koreaanka ah ee Blackpink iyo xataa BTS oo ka soo wareegay shirkadoodii hore ee Sony oo ku soo wareegay shirkadani UMG shirkadahana dhinaca muusikada inta badan marka heshiiska lala saxiixanayo fanaaniinta khayaano ayay ku sameeyaan haddii ay u fiirsan waayaan heshiiska ay la galayaan ee saxiixayaan waxa ku qoran meeshaas sababtoo ah hadhow waxa dhici karta inuu qofkani ka qoomameeyo heshiiskii uu saxiixay adigu warka oo kooban haddeed heesaha nimca habi waxay noqonayaan kuwa ilaashan xuquuqdooda aan la xadi karin meel kasta oo lagu soo baahiyana ay Universal uga daba tagi doonto dhaqaalaha ka soo xaroodona kulleeyde shirkadda iyo ayada ayaa kala qaybsan doona kulley dad Soomaaliyeed ba arrintaasi kala shaqeeyay oo garab qabtay sidaas ayaana loo baahan yahay oo qofka Soomaaliga ay markuu fursad haysto waa in ay dee Soomaalidiisa kale ee kaga aqoon roon hawshani ay u kacaan ay kala shaqeeyaan waana loo baahnaa runtii waqti xaadirkani inay ka faa'iideysato nimca habi sababtoo ah TikTok wixiisu waa marka ugu horeyso qarxoon yacni heestan sidani kuma sii socon doonto oo mar walba TikTok waxa ka qarxa challenge cusub challenge-yadaasina waqti ay leeyihiin oo muddo kadib waa la iska ilaawayo waa laga dhacaa balse fanaaniinta caalamiga ah waqtiga ay heestooda hawada marayso shidmayso ayay ka faa'iideystaan dhaqaale aad u fara badan ka sameeyaan heesa kala horlana ay soo saaraan maadaama waqtigaasi indhaha caalamku ku soo jeedo oo shakhsigaasi la baariyo shakhsigaasi taariikhdiisa iyo heesiisa cusub marka nimca habi waxaan leeyahay fursad kasta oo waqti xaadirkan ku soo marto oo ka faa'iideysan karaysid kaga faa'iideyso runtii aad ayaan ugu hambalyeynaya hadda nimco ay taageerayaal caalamiyaad heshay YouTube-na waa ay furatay haddaba intaas yareen jeclaysteen muuqaalkan gudihiisa maanta idinkula wadaago gabi ahaanna muuqaalkani halkaasi ayuu ku egyahay waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan like saar sidoo kalena haddii aad ku cusub tahay channelka Mufahmi ku soo dhawow oo subscribe saar muuqaalo aad ka heli doontid ayaanad kala socon doontaa channelkani Mufahmi sidaas iyo amaana Allah assalaamu calaykum